معقول نقطة ده معقول نقطة أوكي DXY da change ugu dambeeyay halkaas oo ka dhacay kan wuxuu noo noqday oo halka yaalo sida hadda ii muuqato wuxuu noo abuuray Nilo kan wuxuu noo abuuray Nilo structure-kii hore waxaa noo xigay another lolo kale oo halka ahaa then automatic kan wuxuu noqonayaa markasi low high ah low high-gaasi waxaa moodaa in asagana dib loo jebiyey oo suuqii isbeddel uu sameeyey oo change ah then halka waxaa dhacay marka new high okay kaas wuxuu noo noqday new high kaas ayaa noo noqday new high waxaa xigay another brief structure oo suuqii haddana hoos marka la sii aaday wareerka noocaas oo kale suuq waxaa geliyo saameynta newsidii iyo waxyaabaha markaa fundamental analysis ahaan waxaan sii wadan karnaa marka structure-kii hore oo ahaa downtrend-kii hore so new logaasi oo halkaa ka dhacay waxaan ku xisaabi karnaa marka inuu yahay invalid structure oo markaa suuqii uptrend-kii hore uu bilaabay muusan dhammaystirin taasoo noo sababayso in suuqeeni fursadaheena now ay noo noqon karto kan inuu yahay correction kan inuu noo noqdo correction then haddii ay macquul noqoto suuqa in one more time zoonkii saacadihii hore hadda xirka hore laga soo daaday inuu dib ugu laabto si aan fursadan DXY u qiimeyno aniga aragtidayda DXY waxaan qabaa ilaa iyo jihada selka ah in la sii aadi karo sida market structure-ka hadda iga muuqato aan ka aaminsanahay okay haddii marka ay jiraan wax kaloo su'aal ah oo ku saabsan waxaan isku dayi doonaa inaan chatkiin halka ka akhristo wixii ka horeeyo waxaan isku dayi doonaa inaan focuskayga casharkaan siiyo okay DXY-da aragtida noocaas markaan ka qaadano lacagaha kale maxay noqon karaan sida eurada iyo GBP-da waxay noqon karaan jiha buy ah inaan markaa fikirkeeda aan ka qaadano okay ma u laabanayo gadaal oo iskuma dayi doono inaan kusii fogaado sharxaadda DXY sharxaadda euro USD laakiin waxaan ka qaadan karnaa correctionka ugu dambeeya oo halka ahaa in sida hadda noo muuqato correctionkaasi meesha uu ka soo laabtay ay tahay demand area IC candlekaas sida hadda ii muuqato meeshuu respect gareeyey so demandkaasi jihada trendingana caadi ahaan maadaama DXY ay sell tahay eurodana caadi ahaan kaasaa ku noqon karaa marka haygeeni hore waxaana macquul ah marka in la sii tegi karo maalmaha nagu soo aadan levelka kore in la sii push gareeyo sida ii muuqato structure-ka guud so correction-kan ma ka heli karnaa shuruudaha entry model-ka so haddii aan u laabano 5 minutes-ka 5 minutes-ka waxaa ugu baahannahay inaan ka helno equal low isla eg hoose oo liquidity ka matasha xalay mar dhexdaas aan fiirino isku day inaan meelaha equal ka helo laakiin ku macquulsan waxay ila noqotay inay markaa ay halka hadda noo taasho golkeena kaas ayuu أنا وعايز كده عبسلاني حق جوا قليل كانوا إيش ولا كانت هولي بهايانه وعم قبل كانوا بدالي يقول هالقف كلام ربان أنا ما يشكر وين إسكيل هذا اللي فانو فرتي مش شيكيدي خليفة أبو سعود يا كلام خليفة أبو سعود then access usina ya okay so kaas wuxuu noo noqon karaa marka equal keeni waxaa xigo another manipulation oo kan ahaa sida eurada iga muuqato kaasi hadduu manipulation noo noqday lacagta euro USD waxaa u baahannahay marka dulqaad badan mar kale ay kusoo laabato zoonkan si ay meesha scenario 1 ay noogu noqoto fursadeena jihada buyga ahna waxaan kasii buush garayn karnaa ilaa halkan marka su-aasha ilaa halkan in lagu soo laabto I think waxay u baahan tahay waqti dheer haddii aan usii degano meelahan kale oo hadda aan trade ka qaadan karno igama muuqato soo kalsoonideena ilaa iyo suuqan uu ka sameeyo another break of structure for 5 minutes oo halka haddii ay ka dhacdo oo suuqa kor usii jibiyo kadib waxaan samayn karnaa scenario 2 inaan fursadaha booskaas ay karaasano laakiin taasoo aysan dhicin waxaan u baahannahay dulqaad maadaama isbuuc hadda uu bilow yahay inay halkaa one more time kusoo laabato so awoodda dhaqaaqan halkan ka dhaqaaqayna aragti ahaan waxaa sababay saameynta newska haddii aan isla fiirino forest factory newsada saameynta ku lahaa mise isbuucan ku leh
inaan hal mar dul marno sida ala socotiin forex factories waxaa meel indicator economic la akhriyo laakiin maaha real data meel adiga aad kalsoonidaada badan aad siin kartid maaha waan filter gareynayaa isku day inaan lacagaha aanan trade gareynin ka reebo hadii ay ii noqoto so tanna ma trade gareeyo so tanna waxaan ka bixinaynaa low economic apply filter leh okay oo soo laaban doona so marka saameynta haddii ay noo soo laabato waqtigeen waxaan rabaa inaad ku ilaalisaan soo laabashada haddii la helo ilaa beri waan qaadan doonaa haddii beri structure ay sii samaysana aragti kale waan ka sii qaadan karaa marka waxaan usii gudbayaa GBP USD GU xoogaho way ka aragti duwan tahay Euro USD markii loo fiiriyo time frame good waxaan moodaa ayada jihadeeda in ay tahay jiha ay markaa buy ah sida eurada aysan ahayn already wadadeeda horena sida ii muuqato hayaloogii hore halkaas laga soo jibiyey halka waxaa noo yaalay isbedel oo coach ah then kan wuxuu noo noqonayaa another new low oo asagana la isku dayay in downtrend suuqa loo kaxeeyo kadib lagu guuldaraystay oo suuqii wuxuu sii sameeyey break of structure oo uptrendkii hore ah so taasoo marka noo suurtagelisay in biaskeena mas jihada aan suuq u fiirinayno inay noo ahaato jiha uptrend kan wuxuu noo noqon karaa marka kan wuxuu noo noqon karaa high so halkan waxaa noo yaalo IC candle oo demand area ah kaasi wuxuu noo ahaa demand area oo IC ah then correctionka waa midkan halkan soo aaday oo demand soo aaday haddii aan 5 minutes ula degano halkan waxaa noo yaalo equal logii hoose oo suuqa qaadan karnay haddii ay macquul tahay so equal logaagii halkaas uu ku aadi karaa equal logaagii halkaas uu ku aadi karaa then waxaa xigay suuq inuu sameeyey dhaqaaq manipulation okay so that's why eurada waxay kaga duwan tahay ayada already euro USD markii ay isku daysay inay confirmation entry bixiso already GU trade qurux badan oo markaa qofka haddii uu focus ahaa saaka oo kale ay bixisaa jirto meesha aan ka rabnay euro USD inay shift kale noo samayso noo soo laabato already GBP USD fursadan ay bixisay saakana waan soo sheegareeyay sida aan rajaynayo qaybta ka mid ah oo Discord-ka marka internetka ay yar culusa maysan soo gaarin marka message-ka laakiin trade-kan wuxuu ahaa trade-yada isbuucan ugu horeeyay aan fursadaheena aan ka qaadan karnay euro USD nidaamka GU ay u bixisay maysan u bixinin oo ay ka aragti dubneed laakiin GBP USD ayaa waxaa moodaa in fursadii sidaa ugu talagalnay ay nagu siisay so salahan haddii uu stop loss-kaagu ahaa entry zone-kaaga maybe ilaa iyo haddaa siisay 20 maybe which is meeshan 35 waaye maybe litaasay even 20 haddaa siisay for me ilaa iyo IC candle-ka haddaa hoos ka mari lahayd trade-kan waa trade-yada isbuucan rabay inaan ka warhayno so already waxay dhaqaaqday 100 iyo dhowr ku dhawaad bips which is dhihi karo waa trade-yadii ugu fiicnaa oo aan heli karnay haddii focus aasaysa marka euro USD ama bedelkeeda waxaan isku dayi doonaa haddii ay noo soo laabato will focus haddaysan soo laabanna meesha uga tagi doonaa laakiin GBP USD trade is dhihi karo haddii loo baahnaa inaad ka baaqatay marka haddaadan ka baaqanin is okay haddaa ka baaqatayna still trade kale fursado kale way noo imaan doonaan oo marka recordka aan ku darsano so waxaan usii gudbayaa lacagta USD card USD card xogaha wareerkeeda iska yar badan yahay sida lacagaha kale iyo xogaha fasiixo ma ahan gebi ahaan ayadan waxaan keli ka qiimeyn karnaa haddaba trendiga jihadiisa waa qaab noocee meesha kale noogu dhow aan ka qaadan karna trade okay trend ahaan ayada jihadeeda sida ii muuqato waa trendigeeda waa buy oo low high u dambeeyay halkaas laga jibiyay kaas wuxuu ku sameeyay high so high naftirkiisa waxaa moodaa in la qaaday oo isla saaki in la qaadaa moodaa BSA meesha ku jirto kadibna kan uu noo noqon karo high then high loogeena hadda waxaan ka cabirin karnaa inuu kan yahay correctionkii meeshuu ku dhamaaday so waqti ay ku qaadatay inuu toos u jibiyo laakiin ugu dambeyn waxaa moodaa ani ahaan
dollarka sidaan sheegayba awoodiisa sell u saadaaliyay maadaama dollarka awoodiisa aan sell u saadaaliyay aan GU iyo Euro USD aan buy ka rabo so USD ka su'aala jirto inaan isweydiin ah direct saameyn noocee ayuu ku leeyahay dollarka markii loo fiiriyo USD ka aragtidaasi dadka badnaa si bay u qiimeeyaan laakiin ani ahaan fikirkeyga mar walba waxaan fiiriyaa hadba jihada trade-ka 1 hour-ka ah qaab noocee ay u socdaan taasaa mar walba kalsoonideeda siiyaa meeshan hadda aan saaray calaamadda dhimaanka ahna waa inducement haddaa la socotaan so waxaa macquul ah ilaa halkaan inay soo bush gareyso ay suuqa la keeno sidaana fikirkeyga aan qabo hadda as leeyahay haddii correctionkan yaroo gudaha ku jiro soo laabtay uu buy sii aadi karo 5 minute ula degan aan hadda trade aan ka qaadan karnana trade low aan ku qaadan karo oo halka ii yaalo ima muuqato okay so laabashadii hore BUSD ku kormartay full body candle 1 hour halka yaalo so way kugu adag tahay in meelaha noocan oo kale aad trade ka qaadatid adoo u jeedo fursaddan selka awoodda lagu soo daadiyay meesha taasho so si aad marka uga badbaadid xaaladaha noocaas oo kale ani ahaan waxaan qabaa USD card maadaama dollarka uu sel yahay aan waqti siino oo ku filan aan fursad trade kaliya ah oo dhimaanka lagu imaan karo aan ka dhisi karno ani taasaan qabaa price hadda meeshuu maraayo yaan isdhihin buy u aadi karaa maadaama confirmation aan badan uga baahannahay oo meesha hadda joogana inducement tahay xitaa meeshan kale ay noqon karto inducement soo si haya loogan loo soo testi kara xataa coach la sameeyo waa macquul marka ilaa ay ka kala baxayso mo kale ay ka noqonayso ani ahaan waxaan qabaa euro USD GBP focus aan siino maadaama GU ay already trade bixisay haddaadan qaadan is okay laakiin isbuucan focuskaaga wuxuu ahaan doonaa inaad lacagaha sidii inoo galo okay waxaa u gudbaya lacagaha Japanese-ka waa lacagaha hadda aan rabo inaan isbuucan focus badan asla siino caadi ahaan jihadooda trendiga sida halkan nooga muuqato growth structure u dambeeyay uu suuqa sameeyay kan ayuu ahaa sida ii muuqato hadda lacagta USD JPY so kaasi BOS kan ugu dambeeyay noqon karaa haddii kaas BOS ugu dambeeyay uu yahay automatic meesha waxay noo noqon kartaa marka kaas hadda yahay kan marka hayaloogi ugu dambeeyay oo suuqa laga dhaqaajiyay so haddii hayaloogaasi dib u fiirisid waxaa moodaa in lagu sameeyay isbedel coach ah taasoo muujinayso jihada trendiga lacagta USD JPY inay hadda haysato halka new low so new lowgaas dartiisa waxaa macquul ah in suuqan aan ka sugno one more break structure inuu noo sii sameeyo haddii intaa laga soo gaarayo ka horna aan isku dayno in correctionkan naftirkiisa oo hadda buyga aaday oo korka u laabtay then meesha u socday danta u socday inay ahayd in supply zone-ka area kor la buuxiyo sababtoo meeshan imbalance badan ku jiray sidaa darteed buyga correction sida ay u dheeraaday so hadda ula degatid marka 5 minute mise 5 minute oo kale ma hayna liquidity noo suurtagalisay equal high ah iyo manipulation israacay oo trade halkan laga qaadan karay okay haddaba hadda halkan dib u fiirisid halkan si kaliya wax equal ah ma ka muuqata equation kina isweydiisada wax equal ah ma ka muuqata equal ka kan ayuu ahaa oo halkan xoogaa u muuqda inuu ku yara jiro laakiin isnot ma ahan mid si kalsooni badan aan u kalsoonaan karno equal kale halkan ma yaala halkan equal yaalo ay macquul tahay inuu hadda suuqa sii jibin karo uusan taabanin so equal kale haddaan heli karno maybe meelahan haddaan focus gareeyo ma ku jirto haddaan meelahan waqti sii siiyo kuma jirto so suuq xoogaa kale yar dheeryahay marka waxaa moodaa marka shift caadi inaan hayno okay so tradeada markuu shift soo hormaro aadan liquidity haysanin waxaa fiirar oo macquul ah inaad waqti siisid waa in liquidity aa hesha adoo ku raadinayo correctionkan kala soo laaban doono inaad liquidity ku raadisid taasoo kuu suurtagelinayso shiftigan inuu ahaa keliya mid trendiga hore ka istaajiyay laakiin uusan ahayn in trade lagu soo qaato so waqtigan waxaan siin doonaa correctionkan kor u laabanayo inuu noo sameeyo liquidity haddana isla mid ah shift noo sameeyo si fursaddan selka ah haddii korkan shuruudii aan kasoo helno one more time ilaa break of structure-kii new lowgii hore aan sidaa ku taageed garaysano so hadda ka horna waa ka hadlay oo arrimo badan aan ka dhawaajaa jirto haddii suuqaaga new low keliya u haysto kalsooni sel ah ma haysatid laakiin waxaa mar walba isku daydaa aad ku adkaysataa correctionkan scenario 2 aad kasoo dhisaysid haddii shuruudaha aad ku wadashid impulsive-kan waa soo trade garayn kartaa marka USD JPY waa waqti u baahannahay ay liquidity lagu siiso ay haddana shift kale lagu siiso si aan trade-kan usoo qaadan marka haddii rulsigaaga iyo shuruudahaada aysan meesha yaalin wax kale u baahan tahay patience inaad suuqa lacagta mise trade-ka aad qasabtid waxba micnaa kuma keenayso okay so card JPY usii gudbaya
xogaho waa ila aragti qabtaay oo shalay aan ka hadlay oo mar dhexda live oo habeen cashir aan bixinayay xogoo isku yara dhow yihiin so ayada si lamid ah waxaan haynaa new law waxaan sugayn inuu brief structure kan sameeyo cashir xalay market structure aan ku sharxay ahayd so correction kan noo socday awooddiis waxaa moodaa inay soo gebgabowday waxaana ku garan kartaa sida USDJB ay shift u samayso kale correction kan in halkaa markaa asagana shift laga sameeyey taasoo marka noo muujinayso inuu shiftiga soo hormaray ay liquidity noo dhiman tahay si lamid ah marka waxaan u baahannahay shiftiga lagu sheegayeen waxaa waaye waa keli correction kan oo buy ahaa in change of character lagu soo sameeyo so waxaan u baahannahay si lamid ah laabasho kale oo correction ah aan kasoo dhisi karno shuruudihii equal low equal high iyo shift kale inaan helno then aan trade keeni mar kale aan selka usoo qaadano so aragtida technically oo aan suuqa ka qabno inta lacago aan trade gareeyo intaasay ahaayeen gebi ahaan waxaa fursad qurux badan bixisay GBPUSD oo qofkii calafka haddii calafkaaga uu ku jiray waa qaadatay haduusan calafkaaga ahayn si lamid ah fursadaha usbuucan aan sugno maanta waa isniin dan waxaan isku sayaynaa inaan 5 trade isbuucan aan qaadano haddii marka analyse-kaaga guud uu sidaa kugu saxan yahay wax keliya u baahan tahay waxaa waaye inaad fursadaha tradeed hindhaha aad ku heysid anytime shuruudihii aan sheegay wax ka mid ah haddii aad aragto in fursadii execute garaysid sida ayaa horta isleeyahay aragtida guud ee aan ku qiyaasi karo fursadaheena isbuucan meetingkan iyo recordkan wuu duwan yahay maybe qof kaloo ka maqan inuu daawadana usoo baskarin doonaa mid kaloo raban waxaa waaye maanta waa isniin waxaan leenahay keliya public sidan oo kale inaan live ku analyze garayno 42 qof oo joogtana sida lamid ah oo discordka ka imaaday waxaan isku dayi doonaa teamka inuu aan bilownay saa xasuusataan haddii casharadaada wax kaa dhinaan in free class aan bilownay caawa 2 saac iyo caawa 3 saac markay tahay aan soo gali doono qaybta online-ka dhalinyarta physicalka joogta xarunta joogta oo markaa noo imaadeen maqribkii in 1 saac bar oo classkeen noo bilaabana waa haddii aad ka mid ahayd dhalinyartii oo physical classka imaanaysay haddii online-kaaga uu ahaana fursaddii sanadlaha 3 mar aan qabanayay bishan 10keeda beri dambe inaan insha Allah ilaa 3 Abriil 4 Abriil aan ku sii wado so haddii cilmi wax uu ka dhimi yahay aadan fahamsanayn sida loo trade gareeyo fursadaada meeshaas ka sii wado haddii aad live-kan joogtay aan fursadaha sidaa u tilmaanayna oo sida yihiin inaad ku caddeecdid then wixii set up ku saabsan oo aan soo dhigi karona aan soo dhigo qaybta set up-ka Discord-ka berrin waxaan noo balanay qaybta Discord-ka member chat-ka meesha ayaan ka sii wada doonaa intii waxbarasho rabto waxbarashada u wadaynaa intii live rabto trading live-ka u sii wada doonaa so haddii ay wax su'aal ah jirto as leedahay su'aal best trade ayuu ahaa qof GU qaatimi jira guys best trade ayuu ahaa saaka quracday okay thank you ha aniga cabdi so GBSD haddaa qaadatay maybe dadaalkaagaad ku gaartay waxaan rajayn doonaa inaad fursada sidaas si qurux badan u sii joogteen doontid technically iyo in kili trade lagu qaato lagu guuleysto cilad xoog way kar weyn tahay maskaxdaada iyo dadaalkaaga iyo journalkaaga iyo fikirkaagana inaad adkaysid isku day maanta haddaad trade-kan guuleysatay beri hadda stop loss qaadato waxba khilaaf ha samaynin just shuruudahaadii iyo conceptiga entry model-ka iska ilaali so haddii su'aal kale ka baxsan trading iyo wax ay jiraan inaan ka jawaabo diyaar u ahay haddaysan jirinna waxaan isku dayi doonaa inaan halkaa recordka ku joojiyo aan isku dayi doono inaan idin soo